إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan aad iyo aad uga kurbaysanahay amaan uga xunnahay dagaalkaas ka dhacayo gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan Warshiiq Acdale iyo agagaarka deegaanka la yiraahdo Burdheere oo ku dagaalameen laba beelood oo walaalaa dagaalkaasna in badan uu soo noqday habka loo xallihaayana waxaa ka fiican habooban soo naqahayn oo labada cidood ayagu ay dhaxdooda raalli ka yihiin inay ku xalliyaan raallina ay iskaga yihiin loo baahan yahay dhibaatadaas waa lagu leeday dhib badanaa ka dhacay dad badan loo baahnayn iyo khasaaro badanaa ka dhacay in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan la joojiyo dhiigaas qubanaya yani dhiiga walaalaha ah in la joojiyo arintana lagu bedelo muxuu ahayto wada hadal ayadoo runtii yani ay tahay mid diiniyan iyo mid muxuu ahayto dhaqanba ay tahay arin xaraan ah dhiig walaal in la daadsho tan kale waxaan rabaa inaan yani baaq u dirno mas'uuliyiinta Hirshabeelle iyo waliba ciidamadii halka deganaan jiray in ay runtii dhaxgal dhab ah inay sameeyaan wax baaqeynana wuxuu ku saabsan yahay beelaha walaalaha wuxuu ku saabsan yahay in colaad maanta waxba ayna soo kordhinaynin wiil inuu ku dhinto moogiyo wiil kuma dhasho waxa muhiim ah dhalashada in la fiiriyo waxa muhiim waxa jira ilaahay matqaan dadkan isugu nasiibay ehelnimada in la fiiriyo baaqa dhaqanka la fiiriyo baaqeena la fiiriyo colaadda nabad lagu bedesho waa ognahay culays badan jiro annagana kulay dabcan waxaan adkeynaynaa baaqi ay direen dhaqanka siyaasiyiinta iyo ma aragtay madaxdii Hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa oo kale in ma aragtay lala gaaro dhinaca ma aragtay gargaarka